gudoomiyaha xisbul xaakimka talada dalka haya ee kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa u soo jamaaday saaka arooryadii hore dhinaca galbeed gaar ahaan gobolkani Gabiley waxaana gudoomiyahaasi aan loo kala hadhin lagu soo dhaweeyay deegaanada Arabsiya iyo Gabiley xuduudda taageerayaasha xisbiga kulmiye ee shacabka ku dhaqan magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley oo caruur iyo ciroole madax iyo mijo wiilal iyo gabdho sulaadiin iyo uqaad siyaasi iyo waxgarad soo dhaweynta wafdigan ballaaran ee uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa xisbiga madaxweyne wafdigaasi murashax Muuse Biixi Cabdi oo ay ku wehelinayeen wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xildhibaanada golaha wakiilada maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo siyaasiyiinta iyo haldoorka gobolkani wafdigani ayaa shacabka reer Gabiley waxay ku maamuseen soo dhaweynta gaadiid tiro badan iyo gaadiidka beeraha lagu qoto ee gobolkani Gabiley uu caanka ku yahay maadaama uu yahay gobol beeraley iyadoo sidoo kalena ay dadkaasi ku dhawaaqayeen ereyo halku dhiga isla markaasina muujinaya taageerada mug iyo miisaan kale ee ay u hayaan murashax Muuse Biixi Cabdi taageerayaashani oo ahaa kuwa xamaasadooda ay ka muuqato taageero iyo galgacayl ay u hayaan murashaxa jagada madaxweyne mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxaana shaariciyada waaweyn ee magaalada ku dhex wareejiyeen gudoomiyaha iyo wafdigii uu hogaaminayay iyagoo ay hareeratunaayeen taageerayaal xuduudooda halkaasi ku soo bandhigayay waxaana la isugu soo biyo shubtay khayriyada magaalada Gabiley iyadoo halkaasina ay kala hadleen murashaxa iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan waxaa Gabiley waa gobol waana hadda shakina male taas Gabiley soo dhaweyntu way sugan tahay ciyaartu way cadahay waa titima cad sheegay hada ciyaartu taasi way gudoon oo way idinku mahadnaqayna waxaan raacinayaa Gabiley maxay doorahay islaam markaysan maxay ka baxay hidaay walahay abaan hidiba Gabiley halkay hidoowahay horseedka dhaqaalaha hidoowahay waa tacabley wada tabca aqoonta horseed ka tahay ilbaxnimada horseed ka tahay intaas oo dhan baa laga rabaa Soomaaliland oo dhan inaynu gaarsiino oo horseed ka noqono taasina waa Gabiley astaanteeda ma aha Gabiley oo qura waxaanu soo gaarsiinaynaa waxaanu soo maray Soomaaliland barigeeda iyo galbeedkeeda waxaanu saraan qaaday idiga sidaa baahdi ku weyniya halka ceed ka soo baxay ilaalka ka dhacdo aad celinayna sida wanaagsan qalbiga furan sida xusbinimada leh ee aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waxay la tahay waa qoor dambe xilli kululna waynu joognaa hadal badan baa loo baahnaa maanta in lays idhaahdo casahatee waan joognaa waxa qura kelmadda qura ee anugu aan odhanayaa ee ina hor taallaa waxa weeye هل استيوان قليو يا بان دمانتي ديكو بحال علينا هذا القوانين سو كوبنا هوغانكا iyo xisbiga waxaanu leenahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa waxa kale ee uu sheegano idinka u sheegay isha macalina wixii kale uu ka hadli lahayn shacabka u sheegay gudoomiye isha macalina intaas aan kaga baxaya qodobka labaad qodobka abaaraha haysta abaaraha aad u baahsan baa haysta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu abaarta inaga soo furto mudane ku soo dhawow madaxweynaha mustaqbalka ku soo dhawow degmada gobol Gabiley waa degmo gobol maaha aday kaasmaysaa ku soo dhawow yaanu ku soo dhaweynay gudoomiyaha ahna musharaxa waxaan doonayaa inaan ka horeysiyo amiin baynu taaganahay abaarayna haya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raxmadina siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarayna naga soo jabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu diiwaangelinta nagu guuleeyo ilaahay waxaan ka baryayaa gobolada waddanka ugu horeeya inaan diiwaangelinta noqono si kastaba ahaatee soo dhaweyntani mujaahid Muuse Biixi Cabdi ayaa ahayd mid loogu quus goynayay asxaabta siyaasadda ee kale waana mid marag madoon ah in bulshada gobolka Gabiley kolba murashaxa ay raacdo la saadaaliyo saadaal min awaala inuu talada dalka ku guuleysan doono waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba telefishinka caalamiga ee Kalsan TV in magaalada Gabiley.